الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وسورة البقرة آية 204 قال الله تعالى إلهي بأوحد ومن الناس ضدك وحكمده من يعجبك مذ كياب قلينيو قوله هذا الكيس الله يا ويسابا الله دعيسا في الحياة الدنيا نرشن الدنيا ذا دحديده أي هذا الكيس كياب قلينيا ويشهد الله إلهينا وح أمر خاتق شنيا على ما في قلبه وح قلبه سكتره وهو ألد الخصام مد دودي صدرنت هايوي وحق هذا كل دوديو وإذا تولى مركو نقاتيو سيجيت سدو سعى في الأرض دولكو خربية ليفسد فيها سوء دولكو حمايو ويهلك وبابيو الحرث بيرها والنسل إيا حولها والله لا يحب الفساد إلهينا ما تشعلا دول بإثن مضى إن دول كيس لخربه وإذا قيل له مركب منافقا لقو يراهده اتق الله إلهي كعبصه أخذت وحا يكو كلفيسا يكو قبانيسا العزة نحلق قبيالد بالإثم الدنب بكو حنبارا يكو كلفيا فحسبه جهنم نارت جهنم الله يراهده كفلا وأن قلد ونابو لهين ولا بئس المهاد قولنا إياد أوحي ميل قفك قولوا النقطو تشيف صدها الكاسا أوحي آيادو waxay ku soo degtay munaafiqiintii mid kamida laakiin magaciisa quraanku ma tilmaamin waxa loo tilmaami waay magaciisa xigmadu ma aha shakhsiga laakiin waa dhaqanka arinta la iska ilaalinaya waa dhaqankan xun dhaqankan qofka yeesha ama kay ku soo degtay ha ahaado ama ku kasto waqti kasta imanaya ha ahaadee abaalmarintan iyo edeb daradan iyo aafaadkan uu leeyahay iyo eedayntan Ilaahay u eedeeyay subhanahu wa ta'ala sidaa daraadeed baan quraanku aad ugu dadaalin ashkhaasta awsaaftu ku dadaalaa tilmaamaha marka tilmaamahan waxay u taagan yihiin dadkoo dhan inay iska ilaaliyaan lix tilmaamood oo munaafiq leeyahay oo mudan inaynu ka feejignaano ayaa halkan Ilaahay uu ku sheegay subhanahu wa ta'ala si kale hadii loo dhigo waa dadkii hanka yaraa ee cibaadeysanayay haddana yacbuduuna allaha ala harf ومن الناس من يعبد الله على حرف إلهي بدينك كعابدية عبادة مو بيدقنا كمور راسخنه صفمر بيكوت هردين عبوك تاجين مركا كين نوعها إله والدنيا ذا وحسيلها عبادة دي سؤال أدب درهد ولا سعتي أيها هل كان فعل دي سيلها وكبح تدكي وحا كم ذا بولاي تدكوا النوعية قرآن كنا النوعية ذا سو شيء سيلوك قرطقف كحنية كوناكسن كوناكسن هذا النقطة كحنا هذا قفيت جناته من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا الكيس السدو كويا بقلنا يا عجب إيه أعجب باكرة أعجب ووحي وحيسي سو كافر حية عجب نوى أديق أو إنكاره أو كدلا عجبت ذلك أرنت وان كدلا أعجبت والله بعد مرك هذا الكيس كل هذا يكتو sidoo codkarka u yahay oo aftahanka u yahay oo arimaha isugu hagaajinayo waninku wanaagsan aad oranaysa suuratul munaafiquun wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihi waraka haybad lahu joog wanaagsan oo muuqaal fiican dawladuhu kuwan ay safarada u diraan Soomaaliya haybad la saa isu qotominaya ilaan dawladina ka dhax muuqata la doonaya kaasoo kala aad moodaysa markuu hadlana هذا الكيس وسكود هناجسين ونكو توصلنا بعض الناس لكن ما كان إلهي كأنهم خشوب مستندة وقلفاف وسط كمرين مرك هذا الكيس ومعاي هايو دارو كوكبيا وحيابو سود دليشنا يايو نكو ضاعت وهذا اللي وركسنا بعض الناس وحكلو كغسي دري ويشهد الله على ما في قلبه وحا أن يدين شيء جينا إلهي ويجوجينا كضاعت هاي بولي إلهي inaan ka daacada ilaahay ba qalbi jira qowlkayga waa maqashan qalbigaygana alla ogo waan saasan ka daacada wallahi inuu liqsiinaya munaafiq liqsiin jir وهو أرد الخصام tilmaanta kale leeyahay خصام مصدرنا waa noqon kartaa
jamcu khasim sifadii mushabbahada ahayd oo la jamciyeyna waa noqon kartaa khisaam aladulkhisaam doodiisu daran ama aladulkhisaam dadka dooda kuwa ugu dood adag weeye inay doodaadu adag tahayna waxay sheegaysaa inaad daliilka baalmarsan tahay iyo diinta haddaad diinta waafaqsan tahay iyo runta way dabacsan tahayba runtu ma adka dee riixidna uma baahna iyo in la adkeeyo waad sheegi uun beenta iyo jacburkeeda isku toostoosinaya adayg iyo riixid u baahan marka aladulkhisaam haddii lagu yidhi waa calaamadda munaafiqu markuu doodaya uu leeyahy waidaa khaasama fajara calaamadii munaafiqa waxaa ka mid ahaa markuu doodayo xadduu tallaabaa xaq ma eego astaamihiisa waxaa ka mida waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarfa waannasr markuu dhulka soconayo aan cidi arkayn ilaahay iskama eego isha ilaahay iskama eegaye waxa weeyaan dalku fasahaadiyaa siduu u fasahaadiyana ilaahay baa fasirayoo wuxuu halaagay u baabiiya alxarfa waannasl xarfiguna waa beeraha nasliguna waa xoolaha hareeruhun buu iska eegayaayo wuxuu arki waayey dad meesha ka agdhow sow maaha neefkuu dilayaa ama irbad sunaha ku mudo ama dabada bahala ka geliya bir ay u dhimato ama sun ha waraabiyo siduu doonaya ha yeelo aysiid buu ku shubayaa beerahana way ka dhacday ninka aayaddu ay ku soo degtay ficilo noocaas inuu sameeyey khalaas sidaasaan u yahay iimaan laawo dhan qofkaan akhlaaqiyaad iyo iimaan hagaynin waxa weeye dal iyo dad looga aayi maayo iminka gaalada wadamaday ku diwlaan u fiirso dadka qura ma laayaan yuhlikuuna alxarfa waannasr dib u eeg meelaha duulimaadkooda ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla qofki ilaahay kama cabsanayo dabeetana wuxuu odhanayaa dadkan aynu isqabannay ama aynu ku soo duullay si aanay nooga soo daba kicin beerahooda kharaabiya oo xoolahooda kharaabiya oo siirkooda baabiiya yay mar labaad xadaaradooda inaga daba imanin dhanka kalea loo rogaya wayuhlika alxarfa waannasr dumarkiiyo caruurtana waa lagu fasiray maatida nin miyir qabo oo mudan ahoo gobi ma laayo xataa jihaadkeenna marka jihaadka lagu jiro ciddii aan dee maatidaasee caruur iyo dumar aan dagaalka ku jirayn dardaaranka nebigu waxaa in la iska daayo laakiin alxarfa waannasr dumarkiiyo caruurtu laaya maatida kowbu kaga siinaya ila ilaahay baa nisaaukum xarun lakum dumarkiinu waa beer marka nasliguna waa caruurtay dhalayeen dadaan dembiba lahayn oo maati oon dagaalba ku jirin buu munaafiqu laaya astaamaha munaafiqay ka mid haddaad aragta muslimbaha sheeganaye mid maatida un gowda ku haya oo dadaan waxba dilayn oon itaal lahayn oon iyagu mu'aamarad ku jirin laynaya waa munaafiqaa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala wallaahu laa yuxibu lfasaad ilaahay wuxuu yihi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulkan ilaahay baa hagaajiye ilahay ha ka kharibina astaamihiisa waxaa ka mida waidaa qiila lahu taqi llaha akhadat lcizatu bilif marka la waaniyo ee laydha war ilaahay ka cabso war hebelow sidaan waxu wadaa waa si xun dee war ka daah war dad iyo dalba kharibta war tudhaalo la kaale war naxariista keen ee waana ama wadaad ha wacdiyo ama ehel ha wacdiyo ama asxaabi ha wacdido cid kastaba qowlku ha ka soo yeedhee ciza ku dhacaysa ciza cizada ma taqaanaa waa ficiltanka qabiilka waa xamiyat aljaahiliya taa uu qur-aan ku fasiray ilaahay ku fasiray suurat اlfatx waatay soomaalida waxay idhahdaan ficil habartaana wuu kuu geeyaa soomaad maqal ficilka xumaantiisa bay ku leeyihin markuu ficil ku qabto ee aada cadhooto habartaana wuu kuu geynaya si aada uga aargoosato cidda aada la ficiltamayso dee muxuu habartiisii ka doonay hadduu ficiltamayo ma habartiisu la ficiltamaya haya wuu la ficiltamaya anigu waxaan arkay dad qoysahoo ishaysta fiiska shareecada inagu yimaadeen waktiyada ka mid a waa qoys baa ishaysto bahalkan dhulka inkaarta qabee la isku haysto markaa waa la kala jiidanayaa inamadii hablihii islaantii wixii nin iyo markaa waxa isu baxay hooyadii markaa hooyadu waxay leedahay waxaan caynkan weeye anaale isaguna wuxuu leeyahy ma laha markii dambe dee markhaatibaa la waayey hooyadii baa dhaartii qabatay habarta ha la ii dhaariya buu leeyahy waaba la dhaariyeyba hooyadii buu dhaariyo kitaab mariyey bal ka sheekee waana oday koofiyad lo hadduu doono qaar buu dhexdhexaadinaya caaqil isaga dhigaya marka akhadat اlcizaةu biاlإثm
ficil habartaana wuu kuu geeyaa miyaan ahayn kaa hooyadii dhaariyey inuu galmo ugu tago xaaraana un ha u qaadanin laakiin waxa weeye islaanta kuu hooye ana waad cirbajari kartaa wey markaa naxliga qabiilku munaafiquu ku weyn waxaa la yidhaha mar kasta oo sifaadka xamiidka ee baatiniga ah ee wanaagsan alla kacabsiga muraaqabada ilaahay sifooyinkaasi markay xoog yeeshaan sifooyinka damiimka ah ee liita ee baatiniga ah ayaa khafiif noqda oo fududaada marka tilmaamaha wanaagsani ay qofka ku yaraadaan baa kuwan xumi ay aada u badanayaan oo ficiltankiisa iyo cadhadiisa iyo dulmigiisa iyo waxaasi ay badanayaan astaamaha munaafiqa wey ka cudurada noocana qaba faxasbuhu jahannamu walabi'sa almihaad abaalkiisa waa ka adduunyadana waa karaamo daro iyo ceeb aakhirana waa cadaab dadkii haddii kuwa aad aragtay bal hadda kuwan kalena eeg awliyada ilaahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yashrii nafsahu mid naftiisa iibinaya ibtiqaa'a mardaati illaah raali noqoshaa ilaahay isagoo doonaya wallaahu ra'uufu bilcibaad ilaahayna addoommaha wuu u naxariis badan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow udkhuluu waxa aad gashaan fi silmi islaamnimada gala kaafatan iyadoo dhammaystiran walaa tatabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaan shaydaanka tallaabooyinkiisa iyo raadkiisa ha raacina ee ka jooga innahu shaydaanku lakum idinka caduwun mubiin cadow buu idin yahay cadaawadda caddaystay oo aan waxba la hadhayn haddaad munaafiqaa soo aragtay qofka mu'minkee miyir qaba balo fiirsa dhaqankiisa dadkii haddaad kuwaa soo aragtay waxaa ka mida buu ilahay waa laba qoloon dadka adduunka ku noole kaa adduunyada u noole arrinkiisu sidaa hore yahay ilaahay soo sheegtay lixdaa tilmaamoode xumaa ka alla yaqaanka ilaahay ka xishoonaya iimaanku qanjaha joogana waxa weeye tilmaantiisu qaata man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah ishtaraa iyo sharaa baa kala jira sharaa yashtari yashri yashri macnaheedu waxa weeye yabiic ishtaraa wuu soo iibsaday wey sharaana waa yabiicu yashrii nafsahu naftiisu iibinaya ilaahay raali noqoshiisuu doonaya hadduu naftii iibiyey qofka maxaa ugu mudan wuxuu haysto waxa ugu mudan agtiisa waa naftiisa marka haddii uu naftiisii bixiyo ma nafiis buu la hadhaya wax qaalaya ehelkiisii adduunkiisii awooddiisii wixii kaloo dhanna wuu bixinaya ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum bianna lahum اljanna yuqaatiluuna fii sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayh ilaa akhir اlaaya marka dadka halkaasay kala taagan yihin muxuu baadi doonayaa wixii aynu u noolayn kii ugu qiimaha badnaayo ilaahay in la raali geliyo ibtiqaa'a mardaati illaah hadafkaynu u noolle waa kaa hadafkaynu adduunkan u noolnahay waxa weeye ilaahay xag isagaa ina abuuray xikmad buu halkan inoo keenay keliya waynu raali gelin oo wuxuu inoogu deeqee faraha badan aynu bixinno inaga oo raali noqoshihiisa doonayna haddii aynu ilaahay raali gelino adduunka iyo aakhirada labadaba ilaahay wuu ina raali gelinaya raali noqoshihiisa inaad isaga raali geliso horta raadi adda waad raali noqon ilahay baa wuxuu uhi radia allaahu canhum waraduu canh ulaa'ika xisb اllah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun ilaahay baa ka raali noqday markaase iyaguna raali noqdeen haddaanad ilaahay raali gelinin waxa hubaala inaanad weligaa raali noqonayn weligaa sacaado heli mayse adigu hebel baad raali gelisay oo heblaayaad raali gelisay oo naftaadaad raali gelisay oo waad rooraysaa waad guclaynaysaa laakiin ilaahayba xaggiisa ma eegaysa subxaana wa tacaala cadhadii ilaahay baa kugu daldalmaysa adiguna sacaado heli maysid waxaad ku noolaanaysaa xayaatadaadu waxay noqonaysaa xayaata almustawxishiin dadka firdhanaya ee didaya ee cidloonaya istrastiga qabaad noqonaysa ibtiqaa'a mardaatillaahi iyo inaan iloobin waxaa loo batay inuu cid kale la raali geliyo oo aan raali noqoshaha la eegin subxaana wa tacaala qofka isagoo ilaahay ka cadhaysiinaya cid kale raali gelinaya reerkiisaba ha ahaado qoyskiisa iyo carruurtiisa iyo oridiisaba ha ahaado isagoo ilaahay ka cadhaysiinayo isku dayayaa cid kale inuu raali geliyo ciddaa kalena way u cadhoonaysaa ma raali gelin karo rida الnaasi gaayatu laa tudrak baa laya bani aadam inaad raali gelisaa waa meelaan laga sal gaadhinba
maantu kan uu kaa doonaya kan kale oo kan kale lama gaari karo raali noqoshaha makhluuqa laakiin ilaaha khaaliqa isaga ay noo tilmaamay sida loo raali gelin karo cid kastood istidhaado adoo ilaahay ka cadhaysinaya raali geli iyana way kuu cadhoon lianna alquluuba biyadi illaah qalbiyada yaa haya ilaahay baa haya marka kii aad istiri raali geli oo waxa aad arki doontaa uun kuu cadhaysan oo cirkaa maraya war waxbaba kalamaan hadhina balaayada maxaa igu salliday dee waxa kugu salliday ilaahay baa kugu salliday ila ilaahay iskamaad dhisine waxay dhahaan soomaalidu markhaati beenan inaad u furtay kaana muraadsay waxaa tahayna ogaa isaguu kaa muraadsadaa awrkiisii wuu kugu kiciyey waxaa tahayna wuu ku ogaaday qof liita inaad taha u ku caayb maxaad sheegaysaa buu leeyay kaa aniga ku guuray maalin oo waan aqaanaaye waxba mahalla maaha kaas hadda wuu kaa muraadsaday laakiin waxaa tahay buu ku bartay marka aynu ku dadaala inaynu ilaahay raali gelino subxaana wa tacaala arrin kaluu rabbi ka hadlo cajiiba ummaddii islaam iimaanka lahayd buu ilahay u yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaafa diinta islaamka wada qaata dadkii iimaanka lahaayo tallaabooyinka shaydaankana ha raacina oo sideeda in raaci waa cadowe caddaystay cadaawadda marka ismigan ku xigana waa laga xaalayn karaa faacilkana waa laga xaalayn karaa udkhuluu fi silm islaamnimada wadagala kaafatan iyadoo islaamnimadu dhammaystiran wada qaata oo qayba ka tegina ama kaafatan idinka oo dhammaystiran idinka oo muslimka iyo muuminiinta haddaad tihiin ha u kala hadhayna diinta islaamka oo yaan la odhanin dad baa laga dhaafay inay ku dhaqmaan islaamka culimadaa laga dhaafay madaxdaa laga dhaafay reer miyigaa laga dhaafay haadaa maa yamshi dadku ilaahay hortiisa way siman yihiin cidna lagama dhaafo sharciga ha ka kala tegina idinkuna ha u kala tegina labada way noqonaya waa laga xaalayn karaa labadaba laba waa midow in sharciga ilaahay oo dhammaystiran la qaato iyo sharciga shaydaanka in la qaato waxba kama dhexeeya wax u dhexeeyaa labadaa ma jiro sidaa daraaddeed buu ilaahay ku ladhay oo ku lifaaquu yidhi walaa tattabicuu khuduwaati shaydaan innahu lakum caduwun mubiin shaydaanku cadow buu idin yahay cadaawadda caddaystay markaynu runtii dee dad muslimiina waynu nahay oo islaamkii ku abtirsanaya laakiin waxaa dhab ah inaynaan fulinin amarkan ilaahay marka xalkee waajibkaahina waxa weeye inaynu ilaahay amarkiisa qaadano miyi iyo magaalo madax iyo raciyad marka la eego sharci ilaahay oo la wada qaato lagu urursan yahay ma jiro reer miyiga waa adiga arkayoo xeerar bay iska leeyihin qabaa'ilku xeerar ayay iska leeyihiin kan kitaabkaba ka badanoo halkan u yaalla oo marka wax yimaadaan xeerkii muxuu ahaa qoyska xeerkii muxuu ahaa lagu dhaqmi jiray marka dadka wax dhex maraan iyo qabaa'ilka qabiil heblaayo maxaa inoo xeer ahaa de waa adiga yaqaana maamulada iyo dowladaha iyo baayac mushtariga iyo ummadaha magaalada ku noolina dee xeerar kale iyo nidaam bay leeyihin nidaamadan laguu sheegayaana kii ilaahunba halkiisii la geliyey idan marka waa inay timaadaa udkhuluu fi silmi kaafa markaa qodobaynu raacin lahayn aayadda aynu kusii iftiiminayno si aynu waaqiceenna ugu saxno waxyigu waxa uu noo sheegayo taطbiiqu shariica in shareecada la qaato oo lagu dhaqmo waa fariidatun wa daruura horta marka hore waa faral sunno maaha waa faral sida salaadu faral u tahay soomku uu faral u yunbay faral u tahay dee waa tan amar baabaynu haynaa amarkaa ilaahay wuxuu nagu siiyey udkhulu islaamka qaata waxaa ilahay uhi wamaa kaana limuminin walaa muminaةi idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum اlkhiyaraةu min amri ikhtiyaar ma leh qofka muuminkii rag iyo dumar mid kasta aado hadduu ilaahay iyo rasuulku go-aan gaadhaan oo diintu waxu sheeg daruurana wayt innagaaba u baahanba uma baahnin qaanuuna iyo nidaam kale kaynu u baahanay waa kan ilaahay keenay ilaahay baa yihi maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan waxba kumaan dhaafin waxa kale oo dhan xeerarka dib baa loogu noqdaa dibu habayn baa lagu sameeyaa wax lagu ladha iyo lifaaq bay u baahan yihin kan waxba kumaan dhaafin buu ilaahay subxaana wa tacaala ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwa arrin kasta oo toosni badan isagaa laga helaya marka daruura innagaa u baahan maba ka maarmi karnaba mulaaxadaadka kale jiraa waxa weeye haddii ay dhacdo in sharciga la baalmaro ama qaybo ka mida la iska dhaafo siduu ilaahay yuhuuddaba ku eedeeyey afatu'minuuna bibacdi اlkitaabi watakfuruuna bibacd oo kitaabkii ma barh baa qaadateen barhna waa ka tagteen waxay taasi u taagan tahay
in la dhaliilayo ilaahay sharcigiisa oo la leeyahay qaybtaasi kuma habboona in lagu dhaqmo qaybtaasi kuma habboona in lagu dhaqmo ayay u taagantay ilaahayna wuu inoo sheegay subxaana wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma akmaltu lakum diinakum diintiina waan dhammaystiray waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddu diintu way dhammaystirantay si ay qur-aan iyo xadiidba sheegeen adna waa naaqis baad leedahay ilaahay baad la jaafaa jirqaysa la murmaysa sharcigeennan iyo shareecaddeennan wakti wal iyo cid wal iyo goob walba munaasib ayay ku yihiin waayo alla yidhi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir oo dadku abuuray miyaanu aqooni lahay cid waliba wixii ay samaysay iyada ayaa taqaana mashiinka imika kambanigii iyo warshaddii soo saartuunbaa taqaana kii makaaniga kaleed u geysaaba markay ka murugto wuxuu ku leeyahay uun bal buuggii iyo meeshii laga keenay bahalkan bal ka raajac ama china ama jabaan ama meeshii kale bal kula noqo alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir si kale haddii loo eego waxa isbedelaa waa dadka waxa ku xeeran iyo duruufahooda laakiin dadku isma bedelo dadkii waktigii nebi aadan joogay iyo nebi nuux joogay ee waktigii nebi maxamed joogay dareenkay lahaayeen iyo rabitaanaday lahaayeen iyo siday u abuurnaayeen ayuun baynu weli nahay inagu dee dadku nooc kale may noqonin dadku waa dadkii uun hamadii bay leeyihiin oo hungurigii bay leeyihiin oo hadalkii bay leeyihiin oo shucuurkii iyo dareenkii bay leeyihin oo fikirkii waa sidii uun idan markaa sharcigu dadkii loo dejiyunbuu weli u yaallaa waxa isbedelaya waa waxyaabaha iyaga xadaaradahooda iyo waxa ku xeeran wey si kale haddii loo eego shareecadu waa shayga keliya muqadaskaan ceeb lahayn dadka ku abtirsadaa ceeb way yeelan karaa hadda waxaa laga yaabaa markaynu mawduucan ka hadlayno shareeco ka hadlayno dadka qaarkood inay idhahdaan oo shareecada laga hadlayaa miyaan ahayn ta koox hebel iyo fulaan hebel iyo intay dadka ku xukumeen ceebtaa iyo ceebtaa iyo ceebtaasi ay ka soo baxeen dadka ceebahooda looma nisbeeyo sharciga dadku way qaldami karaan muslimiinta mid sharci wax ku xukuma iyo mid kaleba wuu qaldami karaa sida gaaladuba qaanuunkooda ay ugu qaldamaan laakiin shareecadu iyadu qalad ma leh waa diin muqadasa oo aan ceeb lahayn sida ilaahii keenayba subxaana wa tacaala aanu ceeb u lahayn alaa lahu alkhalqu waalamr abuurkiisu ceeb ma leh soo maaha adiga abuurkaagu ceeb ma leh arrinkiisuna ceeb ma leh marka ceebta qofka muslimkii galo maaha in sharciga loo nisbeeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu markay qaldamaan wuxuu odhan jiray ilaahay ou qaladka hebelgalay khaalid bin waliid wuu qaldamo dad buu laayey ilahay ou qaladkiisa beri baan ka ahay layma nisbeeyo shareecadana looma nisbeeyo waa mulaaxado muhiimahoo maanta dad badan ay ku doodaan sharciga ama shareecadu yuu ka yimi dee ilaah dadku u siman yihiin qaanuun kasta oo adduunyada la dejiyaa qolaa ku maxaafsanaysaoo shaar ka dhiganaysa ama dabaqada siyaasiyiinta ama dabaqada dhaqaalaha ama qolada cadaanka ama qolada madowga qolaa si ugu guuraysoo bahalkaa gardaadinaysoo wada laakiin shareecada dee ilaahay dadkao dhami u sinaayeen ayaa keenay ragga iyo dumarkaa u siman culimada iyo caamada cadaanka iyo madowga annaasu sawaasi amaama allah ilaaha sharcigan keenay dee dadku hortiisa way u siman yihiin marka cid looma riixi kalo lama odhan karo ilaahay baa ragga u eexday iyo ilaahay baa dumarka u eexday iyo ilaahay baa culimada u eexday dee wada khalqigiisiiye taasina ma taallo sharci kastaaba waa shaarni leeyahy weligaaba dib ugu noqon ilaahay agtiisa wuxuunay dadku ku kala fadli badan yihin isagaa tilmaamay ina akramakum cinda allaahi atqaakum siday sharcigan u kala dabiqaan unbay karaamo u leeyihin shareecada in la dabiqaa dee wax cusub maaha kun iyo saddex boqol iyo afartan sannadood baa lagu soo dhaqmayay oo la arkoo la ogaado gaaliya islaamba ka markhaati fureen macaankay lahayd yuhuuddaa ka mahad sheegato nasaaradaa ka mahad sheegatay cid waliba maaha wax cusub hadda oo imika la tijaabinaya shareecada marka lagu dhaqmayo maaha in loo qaybiyo ilaa lubaabin wa qushuur dhuux iyo bahalkan iyo qanshar in loo qaybiyo maaha oo la yidhaha intaa faralkumaynu raacaynaa inahaasaa lagama maarmoonahoo maaragtay aynu ku dadaalaynaa kuwani waa sunnayaal sunnaha ugu hooseeya ka u sarreeya waa ka amarka ilaahay nagu siiye udkhuluu fi silmi kaafa marka sunnayaasha iyo masaa'ilka yaryar haddaad fudaydsato kuwa waaweyn baad aroorta ka tegeysa marka lubaab iyo qushuur ma kala lahaa shareecadu
dhammaanteed waa la qaadanaya oo habka loo fulinaya marka laga hadlayo shareecadu marka la tadbiiqinayo kayfiyada loo tadbiiqinaya waxa weeye majaalaadka ama dhinacyada nolosha dhan walba inay gasho hadda waxay lagu ururiyeen dumarkana in lagu mehersado dhaxalkana lagu yaro qaybsado qoomaha lagu yar kala wadwado laakiin majaalaad badan baa lagu inaga jooji islaam kuma habboona waxba badan kama odhan karo marka meel nolosha ka mid ah oo aanay wax ka odhanayn oo aanay sixi karayn oo aanay jahayn karayn ma taalo marka majaalaadkay ka howlgalayso ee aynu ku dhaqmayno caqiidadii cibaadadii akhlaaqdii arrimihii bulshada siyaasaddii saxaafaddii dhaqaalihii arrimihii caalamiga ahaa ciidamadii awooddii milatari meelay ka maqnaanaysaa ma jiro تطبيق الشريعة ليس محصورا في إقامة الحدود كما كوبنا حدود الله dad baa marka la shareecada hala dabiqaha waa kii gacanta la goynaya Soomaha iyo kii la rajminaya kii kow laga siinay kuwaas way jiraan laakiin shareecada marka la dabiqo kuwaas inta yimaadaan baa yaraanaysa kii waxaad ilaa xatooyadiisu ay nagu yaraanayso xoolo badan ayaa la qaybiyaaba sadaqa jiro oo tabarruc baa jiro oo mid saka la laga dulbooday baa jirto oo dadkuba way iska dardargaya marka wixii naboobi lahaa iyo wixii wax khiyaameyn lahaa iyo wixii waxadi lahaa inagaaba tujaar ka dhigaynaba marka tadbiiqu shariica iqaamatu alhudud in la soo boodo kaligeed maaha majaalaadka dhinacyaasha aynu soo sheegnay oo dhan ayaa ay khuseynaysaa tadbiiqu shariica xasba al-istitaaca marka shariicada la dabiqayo awoodeenu intay tahay qof walba ama ummad walba meel joogtaba awoodoodu intay tahay ayuu ilaahay kula xisaabtamaya iyagoo oogi karaya hadday ka gaabsadaan dee waa ahlu naar iyagoon oogi karayn hadday isku qaadaan ay yidhaahdaan waanu beddelaynaana waa qalad diintuu caayay xer ciqaabeedkiisu de waa la yaqaanaa waxbuu xaday ciqaabtiisa waa la yaqaana wuu sinaystay ciqaabtiisa waa la yaqaana ribuu sameeyey ciqaabtiisa waa la yaqaanaa in la yidhaha kaa ma kari karne dee u bedelba xabsi ugu bedelo karbaash ugu bedelo maya mar haddaad fulin karaysana fuli haddaanad fulin karayninna ha falsafadaynin ama sharciga ha bedelina sidiisa ku daa tadbiiqu shariica wuxuu u baahan yahay muslimkii waa tan ileen sida dalkooda loo isticmaalsaday ayaa qalbigoodana loo isticmaalsaday tawciid u baahan yahay dadweynaha in laga wacyigeliyo shareecadu inay u timi iyaga maslaxadoodii iyo dantoodii iyo ilaahay u dooraya oo ay xulna tahay xalna tahay waxay yidhahdaan waxaasi dee waa xal xul maaha bay yidhaha soo maaha xalna way tahay xulna way tahay dadka iyo diinta in la isfahamsiiyo shayaadiinta iyo abaariista diinta ilaahay iyo dadka ilaahay kala dhex galay waa in laga saaraa inahaasoo dhan waa mulaaxadaad aynu baraarujin la ilaa 12 qodob baan xusay markaa waaqiceena inaynu ku soo jeedino waxyiga weyn si ay nolosheena u sixi karno wallahu subxaanahu wa tacaala